شوف هفرنا. السلام عليكم. السلام. في عنتها. خير. ما ونكسنت. الحمد لله. أدبنا في عنا ومية شوكت مقالة. هيه. وشوي ورم. الحمد لله. هيه. أدبنا قفر حسنا هاي كلن كاجا. هيه. ده مقالة هرجيسة مركه هرك كسر دوبان كلنا هاي. هيه. سيب كينا كلن سيه. واحد إيجا ورنتا. إنترنت كم استعماشها. إنترنت كا. أديكو سادو استعماشها قاب كذا قفايدة والله أنا قصي أنا قفايدة وترى بدي ما يستعملوا عن شغله تلفون كاين انقبته أو ديروا أنا هين ما يستعملوا هيه ويروحوا يستعملوا واي ورركي سابضر دبنا وحاول نسيري أضو إسكحيرة أيا كودانتا أيا سكودانتا هيه وأنا بربا أنت هتستعملي سي وحن كوارك مشغول فربضن فكر كاجي يقول ما يا أديكو waxaad qabatay garanayno haddana ku tabcaamaya war ku aan doonayno aad ka naxdo oo wax la meel ka socdaan aad garanaynin deedoodan waa iska kansal gareeyay wixii kuugu yaabka badnayd ku aragto muxuu ahaa dhowr wax waxa igu yaab badnaa qof aan dhiman oo la leeyahay uu dhintay qof aan dhimanba oo la leeyahay uu dhintay oo la soo dhigayaba qofkii oo dhintayba haddana bari ka maalin noqonaya qofkii nool وحيابا لا ياب كلام كو أركو صح واحد كو أركيسا قف قفانو أركبا أما تشعل أما أورالي وان كهلا حتى ما بو أركبا دبنا قرال بو كو استعمالية هيه waxaan ku arkay mashquul fara badan laba aan iskuursano la leeyahay way iskuursadeen ismala guursan way iskuursan doonaan waligii ma maqal way iskuursan doonaan waxyaabo badan baan ku arkay way hagaag hadii aynu u soo noqono intaas waa tii gaarkaaga ahaaneed iyo wixii aad ku aragtay waynu aragno adduunyadu way isticmaashaa internetka balse qaab bay u isticmaashaa si bay uga faa'iideysataa Soomaalideenu waxay uga faa'iideystaan dhanka xumaanta ama macluumaadkiisa iyo wixii si fiican uga wada faa'iideystaan haddaba waxa soo badanaya bariyahan dambe cabashada internetka laga muujinayo gaar ahaan ay habluhu cabanayaan ama ay cabanayaan madaxdu ama cid waliba ay cabanayso laga sheegayo in macnaha si qaldan loo adeegsaday oo hadday noqoto sawirro hadday noqoto fiidiyoyo hadday noqoto maxaan idhaahaye codad oo moobiladii iyo internetkii wada socda loo wada adeegsanayo dadkaasi ama nimankaasi ceebaha haweenkaan idhaaho faafinaya maxaynu ku tilmaami karnaa maxaa laga gudbi karaa maxay ciqaabtoodu noqon kartaa horta wallahi waa mashkuulad inaan ceeb horta male qofku hadduu garanayo nabigu wuxuu calayhi salaatu wasalaam ma jeceshay walaashaa in la xumeeyo ma jeceshay hooyadaa in la xumeeyo ma jeceshay naagtaada in la xumeeyo mar haddaanad jeclayn adnaha jeclaan inaad xumayso sax horta dumarku marka ugu horeysaba ceeb ay leeyihiinba ma jirto kaliya waxa weeye markaa inaad qofka wax ka sheegaana isagunba ceebaysane hadduu isleeyahay waxbaad ceebaysay dee isagunba ceebaysan xaqiiqadii waan maqlayay dad sawirro ku xadxaday qof iska baraad loo sawir lagu xaday oo haddana hadhow la yidhaahdo wax kale waan arkay oo waa jirtaa oo waxyaabahan ku arkay bay ka mid tahay way noqonaysaa markaa waxaan leeyahay qofka waxa sameynaya ama nin mas'uul qof ataagaya cid kasta baan noqday shakhsi ataagaya de marka hore waxa weeye war qofka dadnimadiisa qoomiyadiisa horta de ataagina weerareen marka xigta dumarku waxa weeye waa walaasha waa hooyada waa inantaadii uma baahna maanta marka fadeexadeeda inaad muujiso haddaad un jeceshay hooyada fadeexadeeda inaad muujiso ama walaasha fadeexadeeda inaad bandhigto ama inantaada fadeexadeeda inaad bandhigto samee de waxan صح adna waa la sameyn doonaa adigana way ku haysataa marka aad iyo aad baan uga xumaynay waxaas kala dhacay waxa jira hablaha qaar kood aan la kulmay aanan magacyadooda iyo wajiyadooda aan soo bandhigi kareynin waxa jiray gabdho guriga lahaayo guriyahooda ku dumeen inta sawir si qaldan lagaga qaaday cashuur iyo baad oo la lahaa haddaanad waxa sameeyna ama lacagta soo dirin waxaan internetka gelinaya ku faafinaya ragga waxa sameynaya ama nin ha noqdo ama gabadh ha noqdo qofka waxa sameynaya maxaynu ku tilmaami karnaa qofka waxa sameynaya waxaan ku tilmaami karaa horta marka hore ifi aakhiratoona future yeelan maayo qofka qof ama guri ku duminaya waxa noocana ama raadinaya ceeb qof leeyahay iyo xumaan qof leeyahay
qof aan xumaan bal xumaan ka raadinaya marka hore waxaan leeyahay ifi aakhiratan waana qof ugu ducufsan wadanka dadka maanta qofka waxaan sameeyaa Soomaad garan hadduu ka fikirayo waxa uu yahay waa tuu guursan doono waa tii dhashay waa tii la dhalatay waa tuu dhali doono صح marka kamu qofka noocan ma aha qof ansax ma aha marka hore aan kan ansax ahayn waxa weeye hadduu qof ansaxnimo ku dhashay yahay muu sameeyaan waxan marka isaga ansax ahayn kanu kuwa ku fakarayay inay ama qof sirtiisa helaan ama ceebtiisa soo helaan ama si qaldan isagoo u fadhiya ay soo sawiraan maxaad kula talin lahayd kuwii hore wixii dhacayba dhacay kuwa dambe ee mustaqbalka si loo badbaadiyo gabdhaha iyo bulshadaba ama mas'uuliyiinta iyo nimanka laftarkoodaba si loo badbaadiyo oo ay kalsooni meelaha joogaan iyo meelaha tagayaan ba ay kalsooni ugu qabaan maxaynu dadkaasi ay ku wacyigelinahay marka hore inan adigu ama aad la sheekaysatay ama xidhiidh la yeelatay haddii bilmetel ay safgaran weydaan aad ceebteeda baadi doonto صح kalsooni baanad qabin oo waanad isku kalsoonayn haye waxaan oran lahaa markaa war wixii hore way dhaceen bal qofka bili aadanka ah ka fikiraya ee ninka awliba nin la oranayo uu yahay ragga hablaha waxa ka mas'uula ragga ilaahay mas'uuliyad wuxuu uga dhigay ninka ka fikiraya maanta markaa inantan way sheekaysan jirteen way ku diiday ama waxba idin dhex maray warle gabadh dooq bay leedahay haddaad adigu ka faa'iideysan kari weeyay ama ay isfahmi weydeen habaayidoodina ceebteeda waxaan ka hadlayaa marka anigu waxaan oran lahaa qofka haddaanad ahayn qof marka haddaad tahay qof ansaxa oo ansaxnimo ku dhashay badbaadi walaasha iyo hooyada iyo ilantaad dhali doonto badbaadi ha ka fikirin waxan wax kale doondoon صح وكا قف شرف بري هور شرفته إنت كور هدي الله مقلو إنهم بهالك اللي جو حمية تذكر لما يسوميت بهاي لا ما أنت نوح على جهل يا ما أنت نوح على بعد الجوب يا سيدي عيب كذا بالوهلها أو حد يا الله يغسل ذوي وأنت ما مركب وحنا ليه سكدا يوحنا المركب سكر هذيك أنا هذه أدبان كل سلامية حداد جرتي وحنا هذيك وقبل يناد فهمته إلى وحنا فواحش تهي إلى عيب تهي إلى أنت كل عيب تهي إلى كسمينا كل عيب تهي فهمتي يسوحل صارتي وحويه مرة واحد بود مضان تهي وأيو واحد كان نحضي لبعضها كوت إيمان يسته وراشة هبلي كلام يعني قبضها يعني قبض كوي من كرتها وأيو ده هبلا وحوا سورة خلدنا بالله قاعدنا يد بدنا محنا لليه آدي بنكو مو هالنغية هوش أنا هتشوفين رسيدة ضوّط وأنا لقوقي من دون ولا لقوسو قاري دونا بنكو كاغلش بنكو وامان هي تعلمة ده جارسي وإذا ده جارسي أرين تم حي بلارين تنا كرتها maxaa idinku ragga ma haydin tan ka shaqeeyaan adigoo inaan hadda sicil saarto aad iyo aad ugu mahadsantahay mid kamida majaajilaystayaasha caanka ah wad garanaysaan waa Jawaan oo kabtan Ciise ku magac dheer waagaag Jawaan oo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay kulankaaga iyo inaan kula kulmay magaalada Hargeysa waxaan jecelahay in aan ku faahfaahiyo barnaamij aan ka diyaarinayay isticmaalka internetka inay adduun weynaha oo dhan isticmaalaan aadna ugu soo badanay isticmaalkiisu sidoo kale moobiladan casriga ah ee marka ka dambaysa ay tiknoolajiyadu ay sii kordhayso waxyaabaha dhibaatada ay bulshada ku hayaan waxaan jecelahay inaad fikirkaaga igala wadaagto adigoo ku jira dadka nasiibka aanu helay in barnaamijkan igala qaato ugu horeyn haddii aan ku weydiiyo Jawaanow adduunku siduu isticmaalaa internetka Soomaalideenu sibay u isticmaashaa haddaba sidee bay dadkeenu ay uga faa'iideystaan isticmaalkaas internetka maxay uga faa'iideystaan haddii aad su'aashaas igala qayb qaadato aniga laftaydu anigoo ku faraxsan la kulankaaga Sagal Mustafe Xasan aadnaan kaaga mahad celinayo kelmadda haddii aad weydiisay ilaa meesha in kasta ka soo diyaar garoobay suuqaan iska marayay haddana aniga waxay la tahay internetka marka bulshada caalamku isticmaalayso qof walba qaab uu isticmaalaa marka imika la arko adduunyada waxba laga bartaa caafimaadka laga bartaa jaamacadaha laga bartaa waxbarasho dhan baa laga bartaa adeeg baa u haya dadka marka waa adeeg dadku ka faa'iideystaan ee adigu sidee marka ay leedahay sidee baad u aragtaa maqaabka aan u arko casriga la isku xulay inuu dalkeenu horumar gaaray mise dadyoogu sida u isticmaalaan dadku sida u isticmaalaan bulshadu sida u isticmaalaan iyo adiga Jawaan ahaan sida aad u isticmaasho moobil baad haysataa casriya aalado casriya ku soo kordhaya wadankeena waxa internetkii qaabkeebad adigu aad uga faa'iideysataa horta Jawaan ahaan dadka waxa jira
dadku suucan bay u isticmaalo qof walba adeeg buu haya laakiin anigu sida runtii marka fikirkayga eego dadka qaar baa jira iyagu sida khaldan u isticmaalaya oo matalan marka iminka iyagu meel jooga waxaaba la arkayaa ama wuxuu odhanayaa inan buu la sheekaysanayaa dumarku had iyo jeer dawaska waa niso markuu inan la sheekaysto ama sawir buu ka helayaa ama wuxuu ka helayaa video buu ka helayaa ama cod buu ka helayaa dadku hadday sheekaysanayaan labada qof cidla yihiin si kastaba u sheekaystaan dabeetana wuxuu samaynayaa ninkaasi inuu codkii ka dhigo sir uu gabadhaa ka hayo dabeetana wuxuu odhanayaa haddii aanad waxaan doonaya ii fulinin sirtaadaan baraha laysku arkay iyo facebookyada iyo internetada iyo waxaan aan ku faafinaya kuwaasna had iyo jeer marka sidaasoo kale ay u dhaqmayaan waxaasoo kale ninnimo maaha dhaqan maaha sharaf maaha mas-uuliyad maaha anigu kuwaasoo kale mooyaane dadka waxaan kaloon wax ka sheegaya ma jiraan kuwaasoo kalena anigu kulley qofka diin ahaan ma qabo in dadka ceebtooda la faafiyo haweenkii waa haweenkeennii waa hooyada waa walaasha waa eedada waa inaabtida waa habaryarta marka in haweenka in la ilaaliyo inkastoo haweenku kama maarmi karaan oo iyaga laftoodu bulshadii bay ka mid yihiin way isticmaalayaan internetkii markaan anigoo ninahoo mas-uuliyaddiisida inantii walaashaheed ceebteeda aan la doondoono internetka iyo facebooka iyo waxan halkaad inanta ka asturi lahayd dee wallaahi waa mushkulad aad u weyn waana waxyaalo badan oo maanta dhaca in badan baad aragteedo la leeyahay halkan eeg hiblaayo waxaa samaynaysa halkan riix halkan saa eeg markaa taana waxaan u qabaa nimankuwaasoo kale kalsoonidii ninnimaa maqanba oo inankaas ninba laguma tilmaami karo dhallinyarada cidda samaysa waxaan odhan lahaa maadaama anugu aan ahayn nin weyn waar walaalayaal ka daayo oo arrimaha noocaasee madax furashada laysu qabsanaya hablaha ceebtooda la faafinayo aynu ka daynay baan odhan lahaa walaalayaal aad iyo aadna waan uga xumaa sideeba looga bixi karaa ama dadku u fahmi karaan in ay ceeb tahay oo inuu qof sirtii walaalkii ama maxaan idhaa ceebtii walaashii oo kale ay bixiyaan kuna faafiyaan baraha internetkaasi maadaamay noqdaan meelaha ugu badan ee bulshadu ku kulanto ee la isugu yimaado ee islamarkaasba xogtii si degdega loo heli karo sideeba looga bixi karaa maxaadse kula talin lahayd ragga samaynaya waxaasi ee shaqadoodu ay noqotay iyo inay diinta islaamku ay ceebta qofkii asturaa ay maxaan idhahay 17 ceebood u leeyahay asturo imikana laguba faano heblaayo jawaan baaban sirka haya waan soo faafinaya anigu waxaabay ugu dhacay anigu iska joogo aniga noolo kula hadlaya in baraha internetka iyo facebook la geliyo jawaan oo dhintay halkan ka riix haya oo macal wariyaal laba soo xidhiidhaan oo yiraahdaan waar miyaad nooshay mise waa dhimataan waar ma waa nool oo leeyahay maxaad ku cadaynaysaa inaad nooshay dee waa aniga kula hadlaya haya marka kuwa laftooda baltaa diintu waxay ka qabto culimada la weydiin doona laakiin saanigu dhaqan ahaan iyo nidaam ahaan iyo walaaltinimo ahaan midna uma arko dadka ceebahooda faafinaya kuwaasoo kalena ragba maaha baa la odhan karaa waayo kalsooni baan qofku isku qaban gabadhan uu kula hadlo oo intuu la hadlo si caadi ah ula hadlo uu wuxuu doonayo kala hadlo uu ka fushado ay yeesho dee uu weligay qof dumar furasho loo haysto maanta ka hor waanu ma baaragba marka wallahi waa raad iyo cajub waa raad foolxun waxaan leeyahay war walaalayaal ka daaya wuxuu caar waa hablaheeni qofna ceebtiisa yalla faafinin qof kastana wasaas la isku leeyahay haduu mas'uul yahay iyo haduu wadaad yahay iyo haduu wariin yahay iyo haduu inan yahay dadka qaar bay ceebaha ugu baxdaaba marka waxaan leeyahay idinkan ceebtiina haasturo dadka ceebahooda yaan lagu daalin war waxaan aynu ka dayno aynu si caadi ah u isticmaalno aalada internet aynu dhinaca wanaagsan uga faa'iideysano inta ka soo gabagabeeyay anigu aragtidayda aad iyo aad baad u mahadsantahay aad iyo aad baad u mahadsantahay ayo